بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي دمانتي مواد السلامية إن كسر دواد الهدى سكندري سكول مادتني بيولوجيا كلاسيد وكوبات waxaynu soo wadnay oo ku soo dhex jirnay oo inoo taxana ahaa chapterkii shanaad ee loo yaqaan human machine kaasoo ka koobnaa habab badan ama habdhisyo badan waliba aynu ku soo dhex jirnay casharkeeni afraad oo ka hadlayay digestive systemka. marka laga tago digestive systemka haddana isaga aynu maraynay qaybtii labaad aynoo dhammaatay. maanta waxaynu bilaabaynaa qaybtii saddexaad. qaybihii hore waxaynu kaga soo hadalnay digestionku wuxuu yahay main parts digestionku ka kooban yahay taybiska digestionku dhaca inta loo qaybiyo. waxaynu kaga soo hadalnay waxa loo yaqaan alimentary canalka qaar ka mid ah. afka baynu ka soo hadalnay, caloosha baynu ka soo hadalnay. caloosha bay casharkeena ugu dambeeyey aynu ku jirnayo maxay gidaarada calooshu juiceska ama secretioniska ay samayso waxyaabaha ay soo dayso ee digestionka ama dheefshiidka ka qayb qaata. casharkeena maanta wuxuu ka bilaabmayaa shaqooyinka ugu waaweyn ee calooshu ay qabato. marka main functions shaqooyinka ugu waaweyn of stomach ee caloosha, laba shaqo waaweyn bay calooshu qabataa. mid waa storage, waa inay wax kaydiso. marka kaydintaas waa mid temporary, waa mid ku meel gaadh ah, maaha mid permanent ah ama mid joogta maaha, waa mid temporary. cuntadaasi muddo yar kooban bay ku jiraysaa kadibna way ka baxaysaa. sidoo kale waxaa ka mid ah inay tahay meel uu ka dhaco digestionku, site of food breakdown, inay tahay meel digestion ka dhaco. digestion ka dhacaya mechanicalna wuu noqon karaa, chemicalna wuu noqon karaa. oo mechanical buu noqon karaayo mixinka iyo isku qaska iyo rogrogidda cuntada la rogrogaya caloosha dhexdeeda waa mechanical. chemicalkuna waxa weyn in juiceskii ay soo daynaysay gidaarada caloosha lagu soo daayo. marka stomach acts waxay u dhaqantaa as a temporary, sidii ay tahay mid ku meel gaadha storage tank ama weel cuntada u kaydinaya si temporary for food cuntada. stomachu calooshiisa site waa meel oo food breakdown lagu burburinayo cuntada, ay cuntada u burburinayso si mechanical ah iyo si chemical ah, hab duleed oo physical ah iyo hab chemical ah oo enzymes iyo dheecaano lagu soo daynayo ayay u burburinaysaa. organka ku xigaya caloosha eenu isagana qaada dhigi doona waxa weyn waa small intestine-ka, waa mindhicirka yar, waa alimentary canalka xubinta ugu dheer. waxaa lagu qiyaasaa alimentary canal baniaadamku leeyahay ilaa 5 mitir ama 5 tallaabo. qofka baniaadamkiina 5 mitir iyo 5 tallaabo dhererkiisu ma leegee waa coiled, wuu laalaaban yahay, wuu duuduuban yahay. marka waa marinkaas duuduuban ee caloosha ka hooseeya ee loo yaqaano mindhicirka yar. marka mindhicirka yar qayb uu leeyahay shaqada ugu badan ama digestionka ugu badan ayaa ka dhaca. waxaa ka dhaca nuugitaanka la nuugayo cuntada. marka halkaa dheefshiidku ka dhaco jirka loo qaybinayo assimilationka lagu sameynayo, waxa uu soo daayaa juices fara badan. sidoo kale waxaa ku xidhan qaybta externalka ama accessory organisku, waxay ku xidhan yihiin qaybta ugu horeysa 12 loo yaqaano ama duodenumka loo yaqaano ee uu leeyahay small intestine. marka halkaasay juiceska kusoo daayan iyagoo ducts iyo marino gaara iyagu leeyihiin usoo marinaya dheecaanada. marka small intestine-ku is a long, narrow, folded or colored tube. astaamahaasuu leeyahay waa long tube baynu odhan karnaa, waa xubin, waa tuumbo dheer. narrow tube waa tuumbo dhuuban. folded or coiled tube ama waa tuumbo isku duuduuban oo isku laalaaban. extending taasoo fidsan from iyadoo ka imanaysa the stomach caloosha to the large intestine ilaa mindhicirka weyn. marka mindhicirka baa laba loo qaybinaya. bowel baynu hore ugu soo sheegnay, small bowel iyo large bowel. small bowelku waa small intestine, large bowelkuna waa large intestine. marka caloosha marka laga yimaado ilaa inta laga gaaro large intestine ayuu u dhexeeyaa. marka waa tube-ka extending fidsan from the stomach marka laga yimaado caloosha to large intestine ilaa inta laga gaarayo mindhicirka weyn. is the region isagu waxa weeyaan meesha weer halkaasoo most digestion inta ugu badan dheefshiidka and absorption iyo nuugitaanka lasoo nuugayo cuntadii la dheefshiiday oo food ee cuntadii takes place ay ka dhacdo. marka digestionka ugu badan iyo absorptionka ugu badan ayaa halkan ka dhaca. waxaan it's the region waa meesha weer halkaasoo most digestion inta ugu badan dheefshiidka and absorption iyo nuugitaanka cuntada la nuugaya takes place ay ka dhacdo. waayahay wuxuu ka kooban yahay haddaba 3 successive regions, 3 waaxood oo isku xiga of the small intestine
oo leeyahay mindhicirka yar are distinguished ayaa la kala sooca, waa la kala saaraa. qaybta ugu horeysa duodenum baa leeyahay. duodenum waa qaybta 12 waa qaybta absorptionka ugu badan uu ka dhaco, waa qaybta dhaashashka ugu badan 12 la yidhahdo, waa qaybta caloosha ku xigta. jejunum baa jirta oo iyadana qaybta labaad ee ku xigta, iyo ileum waa qaybta saddexaad ama qaybta centerka ee dhexe ee duuduuban ee coilerka. marka saddex qayb buu ka kooban yahay. haddaba juiceska lagu soo daya xigii ka yimaadaan ee digestive juiceku wax dheefshide from ka imanaya the pancreas, ka imanaya ganaca pancreatic juice baa la dhahdaa, ambile iyo dheecaanka baylka loo yaqaano oo isagana ka imanaya from the liver, ka imanaya beerka, weliba ka imanaya waxa loo yaqaano gallbladderka ama xameetida loo yaqaano. arbowder ayaa lagu soo shubaa into the duodenum, qaybta ugu horeysa ee duodenumka loo yaqaano uu leeyahay small intestine of the small intestine to act on si ay uga howl galaan food there, cuntada halkaa laga helayo. marka cuntada halkaa joogta ayay dheefshiidayaan. the pancreas ganacu is a digestive gland, waa waa qanjidh ka qayb qaatan dheefshiidka, leeyin kaasoo yaala below the stomach, meel ka hooseysa caloosha. marka caloosha ayuu ka hooseeyaa, waxaanu ka qayb qaataa digestive dhaashasha kuwa ka qayb qaataa, waxaanu ka mid yahay xubnaha externalka. kuwa internalka cunto dhex marta maha, waa kuwa accessoriga caawiya ee dheecaanada soo daaya. way sawirkeen waxaan ku eeganaa qaybo ka mid a meelaha cuntadu marto. waxaan ku eeganaa waxa loo yaqaano small intestine. marka small intestine waan eeganaa halka uu dhaco iyo qaybaha ku kooban yahay. calooshu waa tan kan dusha marsan ee wareegsan waa large intestine wey. kaa gudaha ku jiraan waa small intestine. marka small intestine saddex baan qaybinay. qaybta ugu horeysa caloosha kasoo baxda ee halkaa waxaa loo yaqaanaa duodenum baa loo yaqaana. qaybtaa dhexe ee duodenum ku xigta ee midabkaa yare greenka khafiifka loo sameeyey, waxaan jeedaa bluegaas khafiifka loo sameeyey waa jejunum baa la yidhahdaa. qaybtaa ka hooseysa greenka khafiifka loo sameeyey waa ileum. markaad fahmaysaa ileumku inuu ugu ballaadhan yahay ama qaybta ugu ballaadhan yahay mindhicirka yar. marka waa kaa qaybihii mindhicirkuna. sawirkan kalena waxaan ku eegaynaa bal halkay ku yaalaan beerka iyo caloosha iyo pancreaska. wanigni pancreasku waa digestive gland laying below the stomach, kaasoo dhacaya meel ka hooseysa stomachga ama caloosha. wakaa marka haddaad u fiirsato wakaa calooshu waa tan stomach, pancreaska waa kan waa ganiciya, halkaa waxaa ku jira pancreatic duct. ductigaasi waa ka duodenumka soo gelaya, waa duodenumkii waa kan wey duodenum, waa qaybtii ugu horeysay small intestine. marka halkaasay kaga soo shubayaan. halkaa waxaa ku jira gallbladderkii, kan waa liverkii. gallbladderku wuxuu leeyahay wax loo yaqaano common bile duct, waa baylku soo deynayey. marka dhegtigaas halkaas soo maraya, dabeedna halkaas isaguna soo gelaya ganaca. marka halkaa sphincter baa ku yaala, sphincter ama marin meel xidhan oo furmaysa marka dheecaanka la soo daaya loo yaqaano sphincter of the common bile duct. marka qaybahaasuu ka kooban yahay. marka caloosha waa taa, pancreaskina waa ka caloosha ka hooseeya, kaasina waa beerkii, kaasina waa gallbladderkii. marka intaas ayuu sheegaya sawirku si halkan ka muuqatay stomach, calooshii, liver, beerkii, pancreas, ganacii iyo duodenum waa qaybta ugu horeysa mindhicirka yar 12 loo yaqaano. haddaba pancreaska imika kasoo hadlaynay enzymes buu soo daayaa, juice uu soo daayaa. juiceska uu soo daayo dheefshiidka ayay ka qayb qaataan. juiceska uu soo daayo waxaa ka mid ah waxa loo yaqaana pancreas wuxuu soo deynaya wax base ah alkaligaas wuxuu neutralization ku sameynaya ama barxaya ICD, sababtoo ah enzymeska laga helo pancreasku uu soo daayo ee halkaa duodenumka yimaada inta badan kuma shaqeyn ICD conditions ama xaaladaha acidka ee xaamidka ah kuma shaqeynayaan. marka waa in la barxaa
proteinkuna ka mid ah kana soo magaciisa ka muuqato proteinka dheefshiid digest wuxuu dheefshiidaa proteins waxaanu ka dhigaa into peptides marka proteinka waa weli wuxuu ka kooban yahay loo yaqaan polypeptides polypeptideskaas marka la dheefshiido proteins ku dheefshiido ka dhigaa peptides weliba peptides waxa kasii hore waxa ku sii xigay nooc loo yaqaan dipeptides oo laba isku xidhan haddana marka ugu dambaysa laga dhigayaa amino acids marka waa la dheefshiidaya proteinka waxaa laga dhigaa peptides haddana waa la sii yareynaya and then intaa kadibna into amino acidska noorteen hore u sheegnay oo waxa ugu yar ee uu ka samaysan yahay proteinka lipideskuna isaguna wuxuu dheefshiidaa fatska ama lipidska fatska marka la dheefshiido ee la yaryareeyana isagana waxaa laga dhigaa fatty acids iyo glycerol oo ah waxa ugu yar ee uu ka samaysan yahay lipidesku fatty acids iyo glycerol waxa la 3 fatty acids iyo 1 glycerol ku samaysan sodium bicarbonate wanaga sheegnay soo wuxuu sameeyaa neutralization ama uu barxaa acida ka timi caloosha si marka enzymeska pancreaska uu soo deynaya acid of fiican ugu shaqeeya it neutralizes wuxuu barxaa the acidic liquid dareeraha acid water from the stomach ay ka yimi caloosha this is necessary tan waa laga maarmaan in la soo daayo sodium bicarbonate ama neutralization la sameeyo because maxaa yeelay the enzymes dheecaanada of the pancreas laga soo daayay ganacu do not work well si wanaagsan uguma shaqeeyaan in acidic conditions xaaladaha acidiga ah si wanaagsan uguma shaqeeyaan taasaa keenaysa marka in la barxo halkan waxay ka hadli doonaa baylkii weli soo sheegnay waxa laga sameeyay gallbladderka beerkaa soo daaya iyaduna waxay ka qayb qaadataa fududeynta iyo burburinta la burburinayo waxyaabaha lipids ama fatska bile is a green waa wax green ah cagaar ah watery fluid waa dareere biyo ka samaysan made in the liver waxaa lagu sameeyaa beerka stored in the gallbladder waxaa lagu kaydiyaa gallbladderka ama xameetida and delivered to the duodenum kadibna duodenumka ayaa la keenaa waxaana soo qaaday wax loo yaqaano bile duct haddaba bilku contains waxa ka kooban bile cells cusbooyin bileka loo socdo ka kooban yahay that emulsifies taasoo burburisa ama yaryaraysa oo breaks down ama burburisa fats marka bilku waa maxay shaqadiisa ugu muhiim bilka xagee laga soo daayaa waxaa laga soo daayaa beerka xagee lagu sameeya beerka lagu sameeya halkee lagu kaydiya gallbladderka lagu kaydiya halkuu soo maraa bile ductigu soo maraa halkee la keenaa duodenumka la keenaa small intestine-ka halka ugu horeysa wuxuu ka kooban yahay bile cells cusbooyinkaas maxay qabtaan waxay emulsify gareeyaan ama ay burburiyaan fatska haddaba halkan waxaan ku eegi doonaa final productska waxyaabaha marka la dheefshido cuntooyinka qaarkood ay soo saaraan marka nooci cuntadeena eegi doona markay tahay laarjiga weyn tahay marka dambana ee la fududeeyana maxay noqonaysaa the final products of digestion final products are summarized in the table below waxaa lagu soo khulaasaynaya table kasoo socda halkan waa table foodkii halkan waa final product tusaale ahaan table foodka haddaan eegno starachkan eegnaa starachka markaan eegno maxaa laga dhigi karaa final productka dhiigga la raacinayo waa glucose proteinka waa maxay final productgiisu wuxuu noqonayaa amino acids fats iyo lipidska muxuu noqonayaa weli halka hore kusoo sheegnay waa fatty acids and glycerol marka starachka waxa final productgiisa dhiigga raacaya waa glucose proteinka final productgiisa ugu dambeeya dhiigga raacaya waa amino acids lipidska final productka ugu dambeeya waa fatty acids and glycerol weli waxaan ku dhex jirnaa intestinekii waxaa jira wax loo yaqaana intestinal villi oo singularkiisu noqonaya villas waxaa laga helaa muxuu ahay gudaha ama lumenka ama halkay cuntadu dhex marto ee gidaarka hoose ama cervixka hoose cuntadu dhex martay intestineka ayaa laga helaa marka waa wax soo taagtaagan oo fiiqsan oo irbado yaroo kasoo taagtaagan oo kale admada ama gas oo kale kasoo taagtaagan marka gaskaasi waxa uu fududeeyaa digestion ku fududeeya absorption ku fududeeya cervix areada small intestine ayuu kordhiyaa si marka nuuritaan fara badan loo sameeyo cuntada aad loo intestinal villi ama singular villas bay xabadda qura noqonaysaa waa maxay yihiin are small finger like projections waa wax sida farahoo kale oo soo togtaagan small wax yaryar weeyaan finger like oo farahoo kale oo eg projections oo soo togtaagan that extends kuwaasoo ku fidsan into the lumen gudaha hoose ama dhuunta hoose of the small intestine and greatly waxayna si weyn increasing u kordhinayaan the cervix area rajulaadka marka maxaa loo kordhinaya ujeedada maxaa loo kordhinaya for food absorption si loo helo cuntada la nuugo and adding waxaan lagu daray digestive secretions waxyaabo cuntada dheefshiidaya soo deynaya marka bilayga waa kaas qaabkaas u eegay lpm ku kooban laarjigii kaasoo fats ka qayb qaada duinkii iyo arteridii ka kooban yahay marka villas villaskii oo la weyneeyey waa kan marka xubnahaas ka kooban yahay
inta badan wax loo gudbiya waxyaabahan la dheefshiidin waxyaabahan la dheefshiidin marka loo gudbiyo dib waxa awood u leeyahay inuu dib uga waxaa dhaafay la doonayo dibadda loo saaro ama la saxarado la doonayo waxa awood u leeyahay in wixii biyo ah nutrients ee ku jira loo baahay dib looga soo nuugo inta kale aan loo baahnayna markaa la saaro marka isagu waa halkii cuntadu exitkii ay ka baxaysay waa checkpointkii ugu dambeeyay la sii marinayo cuntada large intestine also known as sidoo kale waxaa loo yaqaana the large bowel it's the last part waa qaybta ugu dambeysa of gastrointestinal tract traga ama dhuunta dheef mareenka ee gastric iyo intestineka isku furaya and of the digestive system sidoo kale waa meesha ugu dambeysa last part of the digestive system iyo cuntada dheefshiidka dhahay the undigested food cuntada aan la dheefshiin the undigested food substance walxii cuntada aan la dheefshiin dhiig waxay gaadhaan the large intestine mindhicirkooda ee process habkooda loogu yeedho peristalsis markaa peristalsis waxaan soo sheegnay waa wave like movementskii contractionka iyo relaxationka isugu jiray ee meelaha cuntadu ay marto cuntada ay ku maraysay markaa peristalsis kaas waa markaa peristalsis intestineka hada ka weyn ka yar caloosha wuxoo dhan esophaguska intaba wuu ku maraa laakiin wuxuu ugu caansanaa meel esophaguska cuntada leedahay ayaa peristalsis ku caansan laakiin movementkaas meel walba uu ka dhacayo marka cuntadaas waxay ku gaadhaysaa iyadoo process ka maraysa in the large intestine marka la joogo large intestineka marka la joogo shaqo kale la qabanayo some of the water qaar ka mida biyihii and electrolytes iyo macdanihii la socday are removed waa laga saaraya from the undigested food cuntada aan la dheefshinin ayaa laga saaraya oo dib baa jirka loogu soo celinaya biyaha waa loo baahan yahay electrolytes waa loo baahan yahay marka lama rabo iyaga inay exit noqdaan dibadda loo saaro marka dib baa looga soo nuugaya iyaga the semi-solid wastiga semi-solidka ah ee solidkana laakiin yaro qoyan the feces saxaradii or stool intaba waa isku mid oo saxaradu bay sheegaysaa is passive waxaa la isu dhaafinayaa into the rectum by peristalsis iyadoo la marayo peristalsiska movement marka cuntada dhuunta ku dhex maraysa la peristalsis and expelled waa laga saarayaa jirka through the anus iyadoo la marinayo dabada xagga dama laga saaraya anuska laga saaraya waaye the act of expelling haddaba marka la actiga ama falkaas lagaga saarayo the feces saxarada lagu saarayo iskool waxa la dhahay ejection